بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقتكنا هو وقت الدم ودي طبعا كيف بينما مرسا warka badan aan halkan ka sheegaynaa mana mala yahuud wax badan yeeli maayo kelmadda la igu qoray waxay ku saabsan tahay asbaab dacfi almuslimiin waxyaabaha keenay muslimka tamar darradiisa maanta markaynu eegno muslim oo dhan haddaynu eegno iyo haddaynu carab oo qura eegno carabi waa 300 milyan yuhuudda dunida ku noolina waa 15 milyan waxa Israa'iil joogiya waxa ka maqan marka la isku daro macnaheedu waxa weeyaan boqolkii carabeed ba 5 yuhuudeed ba ku beegmaya waa 5% bay ka yihiin haddii muslim weyne loo eegana muslimku tirooyinka ugu yara ay sheegaan haddaynu qaadano oo idhaahno waa bilyan iyo badh waa 1% bay yuhuudi markaa ka tahay boqolkii muslimaba hal baa ku beegmaya reer banu israa'iila idan 15 milyan bay ka cabanayaan 2 bilyan oo bini aadam oo waxaad u cajiiba 2 bilyan oo bini aadam ayaa 15 milyan ka cabanaya waa qadiyad runtii aad u weyn inkastoo cali diiriye meel odhan jiray ninkii soomaaliyeed ee abwaanka ahaa toddobaatanaadkii dagaaladii markay dhaceen muxuu lahaa israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waa boqol yahuudiya rag baa biirinayo baarka u fidhaaye barqa laguma gaadhin buu lahaa markaa wuxuu tilmaamaya inay 15 kan ahayn dad badan oo ka dambeeya inay jiraan si kastaba ha noqoto taariikhda islaamiga markaanu dib ugu noqono maaha markii koowaad ee muslimiintu ay dacfi dareemaan haddaynu eegno cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti laga xoog badnaa baa jiray haddana waqti yaroo kooban bay labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa dhowr iyo 10 dagaal bay la galeen baan filayaa ay kaga takhalluseen taariikhii ka dambeeyay haddaynu eegnana muslimiintu waqtiyo badan oo dacfi ay dareemeen baa jira waxaa ka mid ah waqtigii mongolian isku qabsadeen caalamul islaami intiisa ugu badan waxaa ka mid ah waqtigii ayaama undulus markii laga soo saaray Spain iyo Portuguese iyo dhulkaasi ilaa Faransiiska dacalkiisa ama Paris dacalkeeda aan idhaahdo macrakatul bilaad iyo muslimiintu dhulkii ay qabsadeen dib looga soo wada saaray waxaa ka mid ah bayt al-maqdiska laftiisa waqtigii ay qabsadeen ama shaam qaybo badan oo ka mid ay qabsadeen oo degeen crusaderskii ama kristankii yurub ka soo duulimaa tegay waxaasoo dhan markaynu isku soo darro taariikhda ugu kuma aha in ama bayt al-maqdis la qabsado ama dhul muslimiin la qabsado ama muslim la jabiyo laakiin su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan mar kasta oo la qabsanayay maxay ku sugnaayeen mar kasta oo muslimiintu ay jabeen xaalkoodu siduu ahaa mar kasta ay guulaysanayeen maxay ku guulaysanayeen qadiyada u baahan in dib taariikhda looga baadho ama dib loo eego waa kaasi inta badan marka taariikhda laga warramayo waxna waxay ku tilmaamaan inay yihiin asbaab daakhiliya bulshada dhexdeeda wax ka jira oo jabku ka yimi waxna waxay ku tilmaamaan asbaab khaarijiya dabadda wax kaaga yimi laakiin waxay yidhaahdaan inta ugu badan leh asbaabta khaarijiga ee la sheegaa waa nataa'ija ma aha sababta xaqiiqiga ah waana sida ay inta badan sharxayso suuratu aali cimraan qisatu uxud marka ilaahay uu ka warramayo laguma cilaynin khaalid baa xariif ahaa ama dagaalyahan ahaa ama godololadiina helay ama waa la idinka tira waxaasoo dhan laguma cilaynin iyadoo ay jirto laakiin waxaa la tilmaamay waxani waa nataa'ije asalku inuu ahaa ضعفي مسلم ككل عجودهيس ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات تربضا أي إلهي سبحانه وتعالى كشر حياة أسبابتي الداخلية هيدا مسلم كأقول عضي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إلهي وحد الماما يسببها حقيقية تشبك كينا إن يهين سبب الداخلية ولذلك قاعدة عامة بقرآن كنت الله الماما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دول لو حيكون سجين هذا يبرر كتيران يا هذا اللي بهاي ستبق لقى ما بدله إن يجوا بدلان ما يعني عما في الأنفس وحنفتو ده كتيرين وحكى بدلان ما يعني وحنذكرنا مركه سبب توردن ولا إجمالين كرا هل ميدا قرا لغة المامي كرا هل كان ميدا ولا تفصيلين كرا ولا بلبلانين كرا أو وحيابها أي شيء يسميت كأجود ولا تفصيلين كرا ولا شيء كرا سبب تو هل ميدا مركو هوري وأما الدين كتجس دين تو الإهمالية دين تو جاهل لقى النقطة دين تو أنا لقى الرقمين في الأمور الشخصية أما في الأمور الاجتماعية والسياسية مدة يدونتان نقطة ويا إلهي بالقرآن كوحي ونوغشة جاي بلن وقاضي هدي دين تسيدا يتحي لوغو رقمه ما هسيدا دادقو فهم سنته وسيدا يضطي دينهم الذي ارتضى سيدا ألا ورالي وغيه هدي لوغو رقمه إلهي بلن قاضي نقول له ليه إلهي القرآن كوحي ونوغشة جاي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبلنا له إلهي نوحي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحب الله قاضي وضدك مسلمين تاو يبوهي هدي لغا هلو إيمان كي الله باهنا لغا هلا عمل ونكسن عمل كي أمد السيئة صالحة الله باهنا إن دول كان إلهي سبحانه وتعالى يغا خليفة قد غيو سيديدتك يغا كهر رييبا خليفة الله قد غي إيين إلهي دين تو مكان سينا يو دينهم الذي ارتضى لهم دينتي الله الرالي والنقضي ما هالدين تن أنه نو فسر كذا وقاضناي مسبحية السجاية نيتها وهذا وردك بتصطو مساجد كاد قشين تقول إيش نسمع وردك هي مسبحة هي صلاة هي كوكاني ووحلو بهاي هي لكن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سيدا وقال إيمانكو كيلو باهنا هدو نقضه ومدى مسلمين تا إيمانك هي ستا كيلو فراي هدو نقضه وإلهي وحلي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قرب إلهي تلما ما أفكنك لا إلهي الرسول بانو رمينو وحبانو أطيعنا لكن كتشيسن يدين تو شيدينيا وركواس مؤمن ما هبا إلهي كتلماما إذن هدو إيمانكو كي دبتاوي هي وحكد شا عمل صالحة أو إسنا عمل كي دبتا شريعة أي شيء يسيا marka waxaynu oran karnaa mushkiladeeno dhame hadaynu duuduubno tafaasiishu hadda mayso hadaynu duuduubno waa hal mida wadin la'aan waa dacfi diinteena ku jira waa ku dhaqan la'aan diinteena aynu ku dhaqmi weynay ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يا إمام أحمد بورين أيام بمجموع طرق علماء لا صحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وحنا بقول عليه الصلاة والسلام هذا عينة كل قنتان عينة هو نوع من الربا وأن ربا الله حيل هذا يستي وأنك ترى هذا
gaadhi iga iibi oo $1,000 iga sii dabeetana iga iibso oo 800 isii markaa meeshu wax weeyaan 800 labaad qaadatay kunna waa lagaa rabaa 800 oo 200 ribi saarantay weeyaan haddaa ciinada ku dhaqantaan buu nabigu tilmaamaya oo looda dabada qabsataan oo beeraha ku dhegtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku sallid ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicu ilaa diinikum ilaahay diintiina u soo noqotaan baa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducf aw idacf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo diin xumadaasi oo tilmaamaysa inaan kitaabka rabbi iyo sunnadii nabigu calayhi salaatu wasalaam siday sheegayeen loogu dhaqmin bidaliil kuwii ku dhaqmay ballankan way heleen yaboohaynu nidhi ilaahay baa yaboohay kuwii ku dhaqmay marnaba may waayin fi taariikh ama cahadu saxaaba ha noqoto ama cuhuudii ka dambaysa ha noqotee kuwii ku dhaqmi waayeyna waa dulloobeen haddaynu isnidhaahno wakhtigu waa kooban yahe 2-3 qodob tilmaamo bitafsiila kow waxaynu leenahay waxyaabaha caalamulislaami ama umma alislaamiya haysta waxaa ka mid ah cadamu alqiyaada alraashida aw ghiyaab alimaami alcaalimi alcaadil waxaa maqan hoggaankii qumanaa caalamulislaami waa dad taliska hayaa inta badan waa dad ama ducafo ah ama diinlaawayaal ah ama aan mabda'aba rumaysanayn ama fahamkoodu uu gaaban yahay oo liito ama aragtiday diinta ka qabanaanay aragti qurux le ahayn saa daraaddeed bay waxay ku dhaqmayaanuun inay dadka caburiyaan iyo inay nafta isugu keenaan iyo inay wax dulmiyaan iyo inay xorriyadda ka qaadaan iyo inay karaamo dilaan iyo inay baabi'iyaan alqiyam alinsaaniya waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka bini aadamnimadiisa ama inay dadka addoonsadaan kuwa ugu ladan ee la ammaana waa kuwa u ogolaado dadku waxay cunaan inay helaan markuu cunnada ogolaado ayaa la ammaanaa la yidhaahdaa ninkaas waa nin fiican oo waddankiisa beriskaa dadku cunaa idan markaynu isku darro nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay xadiidka uu ku tilmaamayo isbeddelka siyaasiga ee ku dhici doona qiyaadada muslimiinta waxa uu ku tilmaamay takuunu nubuwa fiikum maa shaa allahu an takuun nebinima dhexdiinna joogayso qiyaadada ambiya idiin haynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii alla ka doono dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu leeyahy uma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa maamul waddadii nebiga haya ayaa ku xigi doona dabeetana intii alla doonaabay ahaan doontaa kadibna ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu tilmaamayaa boqortooyo caada iyo boqortooyo jabariya kuwa dadka qaniinayo laynayo tumayo cadaadinayo dictatorisa baa ku xigi doona buu nebigu tilmaamaya kuwaana ilaahay baa rafcin doona intii alla doonay joogi doona way rafcismi doonaan waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi oo soo noqon doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar dambe oo dadku uu soo noqdo khilaafo dariiqii nebiga haysata uma sakat halkaa markuu marayay nebigu uu aamusay culamaai taarikh waxay yidhaahdaan taariikhda muslimiinta qayb ka mida buu nebigu tilmaamay qaybna wuu ka aamusay qaybta uu ka aamusay ilaahay baa og dowraadka dambe siday u socon doonaan dowladda tani laakiin saa afartaa bay isugu xigaysaa afartani miyayna soo wada dhaafeen mise badh baa hadhsan raawiga maalan xadiidka warinaya xabiib xadiidka waxaa kale warinaya 2 saxaabi saxaabi iyadoo meel la fadhiyo oo uu fadhiyo xudayfata bnulyamaan oo uu fadhiyo bashiir ibnu saciid nucmaan ibnu bashiir abihi oo nucmaan ibnu bashiir joogo ayaa bithaclab alkhushani weydiinayaayoo wuxuu odhanayaa war bashiirow horta xadiidkii nebiga ma haysaa ee khilaafada ka warramayay ama umarada ka warramayay dabeetana muu jeclaan jirin baa la yidhahdaa inuu axaadiis badan sheego bashiir nucmaan ibnu bashiir aabihii xudayfa ibnulyamaan oo fadhiyaa yidhi anaaga og anaa sheegaya
dabeetana xadiidkan aynu akhriyayna buu sheegay xabiib oo aan ninka nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka warinaya isagu wuxuu ku fasiray khilaafa raashida markay dhammaatay cahdi lumawiga inuu caduudkan iyo jabariganiba jiray khilaafa calaa minhaaji nubuwana inay tahay cahdigii cumar binu cabdilcasiis wixii ka dambeeyana sakadka inay ku jiraan uma sakat waa suu u fasiray raawiga xadiidkaasi culamo kaloo fasir kala saartaana waa jiraan mahma takun yacni dowraad ka mida un dowraadka taariikhiga ah ee maamulka muslimiintu mari doona buu nebigu sheegay dowraadkaasi waxaa ka muuqda inuu jabayso muslimiintu ay hoos u sii dhacayso waxaa kaloo ka muuqda inay dib u soo noqonayso marka ay minhaaju nubuwa raacdana inay guulaysanayso qiyaadadu ay kaa noqoto marka ay ka weecato ee mulugta cuduudka iyo jabariga ay joogtana dictatorshipka iyo kuwa ay joogtana wakhtiga la lumaya inay tahay baa xadiisku tilmaamaya haddaynu si kale u tilmaamno labadaa qodob aynu sheegnay diinta guud ahaan iyo qiyaadada raashidka xadiis isku tilmaamaya baa jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay yaa macshara almuhaajiriin khamsu khisaalin ida ibtuliitum bihinna waacuudu billaahi an tudrikuuhun muhaajiriinay buu nebigu u tilmaamay 5 shay oo haddii ay dhacaan ilaahay baan ka magan gelayaa inaan idinku kuwa lagu itixaamo aydan noqonine waxa ka ratibmayuu tilmaamaya nebigu faaxishada iyo zinada iyo xumuhu hadday faafaan oo ay muclan noqdaan dee kuwo guryo loo karaystay oo calama laga taagay oo caalamulislaami qaybo badan oo ka mid ah dee liisan baabay dowladdu u jartay oo daaray leeyihin iyo guryo iyo meelo hargeysana dee intaan la rogin fucking streetka waa garanaysaan maxaad meel kale durugsan ka tegi doontaa calaa kulli xaal hadday zinadu faafto oo haddana ay muclan noqoto wax caana ay soo baxdo waxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam duulka waxaa lagu itixaamaa xanuuno iyo bukaanno aan ummadii hore hayn jirin ummadii miisaanka iyo mikyaalka baac mushtarka khiyaamadiisa ma bilowdo ilaa iyo abaar baa lagu qabtaa iyo sultaan jaa'ira madax xadgudubta tijaarada ama miisaanka oo la qalda ha noqoto ama shayga waxa uu ka samaysan yahay oo lasoo qalda ha noqoto maantana waa ogtiin ama daawo ha noqoto ama raashin ha noqoto ilaa xad baa la gaadhsiiyaa dadka badh ay idhaahdaan haddaad kintaalkan 50 kiilo ku qorantay miisaanto 40 unbaa buu soo baxaya si kastaba ha noqotee hadday khiyaamadaasi badatana waxaa la tilmaamayaa in abaaruhu badan doonaan madax daalimiinna dadka lagu itixaami doono hadday zakada la manciyo roobkaa yaraan doona buu nebigu tilmaamayaa roobna maba soo da'een haddii aan bahaa'imta iyo dadka waxaa baahanay aanay jirin dad ma buriyaan buu nebigu leeyahay cahdiga alle iyo cahdigii rasuulka ilaa iyo waxa ilaahay ku itixaamaa cadow qaata wixii gacantooda ku jiray hadday dadku ilaahay ballankiisa iyo ballankii rasuulka buriyaan kitaabkii sunnada hadday dhinac maraan ilaahay wuxuu ku itixaamaa sallata allahu calayhim caduwan cadow baa ilaahay ku itixaamaa wixii gacantooda ku jiray wax ka mida ka qaada a'immadoodu madaxdoodu ilaahay kitaabkiisa kuma xukumaan oo wayatakhayaru fiima anzala lah khayrka kama raadsadaan takhayurku waa talabu lkhayr khayrka kama raadiyaan wixii alla soo dejiyey ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum ilaa iyo iyaga alla isku itixaamaa iyaga isdila xadiidkan ibnu maaja baa warinaya lafdigan aan akhriya waana saxiix ligayri bay culimmadu leeyihin idan xadiidkani laba shayba wuu tilmaamaya jawaanib diinta ka mida wixii haddii laga tago waxa soo baxaya iyo qiyaadada daalimka ahi markay timaado waxa soo baxaya dhammaantood waxay tilmaamayaan markaa asalka dacfiga muslimiintu inay masaa'ilkan ku jirto masalada saddexaad aan tilmaamaya maadaama aan raba inaan soo koobo waxa weeyaan waa masalatu tafaruqi waalikhtilaafi waltafakuk wa cadami jamci alkalima waa masalada ah ummaddu inay burburto oo kala tagto oo iskhilaafto oo isdisho oo kala dheeraato sababo badan baana keena mararka qaarkood mushkilo siyaasi iyo fi'a yari maslaxadooda ay u aragto inay sidaa taa keena mararka qaarkood faham kooban oo diineed baa keena oo maanta waxaad arkaysaa caalamulislaami
duul wadaadda sheeganayo iyagun la kala hayo sababtuna waxa weeyaan mid waliba wuxuu isu haystaa diinta inuu isagu wakiil ka yahay fasirkiisuna inuu yahay kii rabbi loo sugo xagga rabbi ka yimi inta kalena inay baatil ku sugan tahay iyana waa sabab ka mid ah asbaabta ikhtilaaf keentay marka siyaasiyiintu waa mukhtalifiin wadaadda badani waa mukhtalifiin caamadu waa mukhtalifiin qabaa'ilku waa mukhtalifiin dowladu waa mukhtalifiin wax wada socdaaba waa yaryihiin wax wada socdaaba waa yaryihiin waxaad moodaaba in sifadii yuhuudda lagu sifeynaya iyaga dhab ku tahay ilaahay yuhuudda markuu sifeynaya muxuu yidhi ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata iyaga colaadood iyo dhibta dhex taalla waa adag tahay waxaad moodaysaa dad wada jira baa ilaahay yidhi laakiin qalbiyadooda way sii kala jeedaan falastiinta imika la hadal hayo dee muslim baa ooda u rogay oo yidhi tuma annana waa idiin ilaalinaynaye 15 sannadood ba hadda la leeyahay wax barisma geli wax la cunaa laga ilaalinaya daa hub iyo waxa ka kaalay bini aadam la yidhi annaga idiin oodayna idinkuna garaaca dee kuwan oodaya waa muslimiin waa dad iyo dalal islaamiya inay gargaar bas siiyaan ka kaalay in la yidhaahdo war haddaa wax iska celisaan iska celiya haddii kalena ha laydinku maado war baabay noqon lahayd ee inaad tidhaahdo anna waa kuu qabanayaa adna tun anaa kuu xejinaya iyo dhaqdhaqaaqina adiguna tun dacfigu halkaasu ka maraya muxuu ugu qabanayaa ma jacayl buu yuhuudda u qaba may u baqayaa adigaa buu ku soo gaadhiya kan ku hayka una tuma buu taagan yahay yani inta badani waa baqe waxaan leenahay marka furqadu asalku wuxuu ahaa muslimku ترى المؤمنين أما مثل المؤمنين رواية بخارية مسلم waxaad arkaysaa muuminiinta ama tusaalahoodu wuxuu yahay marka la eego naxariistooda iyo isjacaylkooda iyo iscaawintooda iyo isu dabacooda sidii jidh qura oo haddii cudwi xubin ka mida jidhku ay xanuunsato jidhka inta kale uu soo jeed iyo xanuun ugu soo jeedo muslimku miyuu sidaa weegiyay maanta maya mid waliba liwaxdo buu fakeraya keligii bal guriga kugu xiga in lagu dhimanayo in lagu nooliyay ma ogid guriga kugu xiga in gaajo loogu baktinayo in lagu nool yahay inaad ogeyn bay u badan tahay ilaahina quraanka wuxuu ku tilmaamay واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ور الله يا الرسول كيسا داع وارهم مرمنها اسقبننا يدا ضعيف بالدا الفشل في اللغه هو الضعف وضعيف يسان وليدن يسان با الهي لي وتذهب ريحكم مقعين يد ولدنمدين يددنمدين يا شرفتين واتقيسا واصبروا ان الله مع الصابرين والصورتقل وحوغا حق شيء دبين اي دحدينا كجري كرتو لكن waxa la yiri xal u raadiyo wasbiru in allaha ma'a sabirin kala guuro kala yaaclayna ma oranine wa wasbiru in allaha ma'a sabirin inaynu xal raadino oo sabirna bay ahay nabiguna alayhi salatu wasalaam xadiiska bukhari wuxuu leeyahay la takhtalifu fa in man kana qablakum ikhtalafu fahalaku warho ya iskhilaafina warku idinka horeeyay way iskhilaafeen dabeetana way halaagsameen baa nabigu tilmaamaya waxay leenahay markaa sababtu sabab khaarijiya maaha maraykan baa caawinaya iyo maraykan keligii baa afghanistan waxba yeeli waayay isagoo 45 ciidana wata 45 dawladood oo kristan u watay qaar muslimiin mooyay dhariyaaya waxay meedhayeen iyana waa la socdeen waa ku jireen qaar dawladaha islaamiga kamid ah 150 geeyay 150 askari waxay qabanayaan garan maayo waxaan uga dan leeyahay maca maraykan ha ku jiro maca kuwa ka sii dambeeya ha ku jiro ibliisna ha ku jiro maraykan daaye haddii muslimku muslim yahay may dhacdeen waxa hadda dhacaya doo muslimku muslim dhaba yahay waxa dhacaya ma dhaceen walidalik adiibkii masriga ayaa alcaqaad la odhan jiray ayaa ixda kutubihi wuxuu leeyahay maqaal weerd la yidhaahdo كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيري إن بدن بالله أركابو يري باطلك إنه مدن يهي أموي يهي وح لتشبين كره وحن بولا يهي بولا عدي مدنيدين يقول يسته يعني باطل حق ملها بولا وح اللواي عدي يضم مدنيد إن يقول يسن كرتا ما يشك بحضي
qodobka afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan ee uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alwahm xub addunya wa karaahiyat almowt dadku nadaradooda inay adduunka ku soo koobaan waa kii sheekhu hadda ka hadlaya maqaasidda jihaadku dee inay ka mid tahay shahaado iyo janno raadin iyo meel kale oo aan ahayn uun intan adduunka xisaabtanku inaanu ahayn laakiin dadku markay aragtidoodu maslaxo shakhsiya iyo adduunka maxaan dheefayaa iyo geeri ka carar iyo xoolo raadin ay noqoto waa kii xadiidka nabigu ku tilmaamayay yuushaku lumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha waxay u dhowday buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam in ummaduhu isugu kin yeedhaan sida kuwa sabta lihi casuumadda wada lihi ay isugu yeedhaan xeedhada inay wadaagaan sida cunnada loo wadaago in laydiin wadaago waa tacbiir runtii aad u cajiiba bini aadam nool in lagu sifeeyo cunno la wadaagaya inay noqdaan nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa sida cunnada in laydiin wadaago oo xeedhada la ysugu yeedho in la ysugu kin yeedhaa baa dhici doonta saxaabadii markay ka yaabeen waxay yidhaahdeen oo ma yaraan baa ilaahay rasuulkiisiiyo waxay is yidhaahdeen un dee malaa intaad dadka ka yaraataan ayuunbaa dunidu idin boobi doontaa wuxuu nebigu ku yidhi bal antum yowmaydin kaiir may maalintaa waa badantiin laakiin daad xoor baa tihin baa la yidhi xumbadan daadku markuu kaxeeyo dusha ka saaran taas baa tihin xumbadu wasni ma leh miisaan ma leh itijaahu ma socoto biyuhu kolba surankay ka laabmaan unbay u samaysmaa shakligeedu waa biyuhu hadba siduu yahay laan kasta oo biyaha soo gashaa qayb bay la hadhaa yacni wax qiimo ku fadhiya maaha noocaasoo kalea noqonaysaa buu nebigu leeyahy walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum wala yaqdifanna fii quluubikum alwahm qalbiyadiinnana nimanka gaaleed qalbigoodana inay idinka cabsadaanba waa laga saari doonaa dee muslimka ma cid dunida ka cabsataa imika jirta waxaa lagu arki doonaa biyo la cabeeyo kale inaad la mid tahay adiga qalbigaagana wahni baa lagu tuuri waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo wahniguni waa maxay af carabi way yaqaaneen laakiin waxay garan lahaayeen waxaan ummad dhan fadhiisinaya wuxuu yahay ilaahay rasuulkiisa iyo wahnigu waa maxay bay yidhahdeen nebigu wuxuu ku yidhi xubu dunya wa karaahiyatu lmowt waa adduun jacayl iyo geeri ka carar nin geeri ka cararay guul haleeli maayo dee guul waxaa ka sokaysa dee mashaakil iyo dhib iyo haddaad cabsidu ku gasho waxba ma jiraan maadaama qodobo badan baynu fasiri karnaa laakiin waxaan rabaa inaan iskaga soo koobo muslimku maanta intiisa badani waa aasantay qaar baa isku dayaya inay madaxa la soo baxaan oo bidaartu muuqataa laakiin iyana weli gumaatiisu may taagin waxaan leenahay tiro ma tiro yara ma dhul yara bale dhul istraatiijiya waxay yidhahdaan badaha dunida cinta kantaroosha ayaa dunida ka talisa ma 6 bay sheegaan kanaal mise 5 kanaal baa dunida ku yaalla mid mooyaane inta kale caalamulislaami buu gacantiisa ku jira hurmus iyo suways iyo kuwana uu haysto turkiga iyo marka la isku daro banama oo quraan gacantooda ku jirin waxaa dunida kanaal isku xidha shidaalka dunidu intay joogaan buu yaallaa tirada dhallinyarada dunida ugu badan intay joogaan bay joogtaa dad wade waa kana way hor fadhidaane wax cirra laydi kuma jiro soo maa waa dunida muslimka oo dhan waa dhallinyarada laakiin waxaanaynu sheegaynaa maqan qiyaadadii raashidka ahayd ee dadkan hoggaamin lahayd mabda'ii xaqiiqiga ahaa ee khayaaliga ahayd ee ummaddani qaadan lahayd midnimadii dhabta ahayd ee ummadda muslimiintii si uun iyo qaab uun ay u midoobi kari lahaayeen aakhiro iyo janno raadintii dhabta ahayd ay ka bixi lahaayeen minnidan sokeeya waxaan aan jirin ee la raadinayo waxaynu odhan karnaa uun maadaama wakhtigu uu wakhti dambe yahay hadalkan aan rabo inaan soo koobo tafsiilka waa tiro badin karnaa laakiin waxaasoo tafsiilay waxaan ku koobayaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin haddaynu diinta garanno waynu garanaynaa saynu wax isaga celinno iyo saynu wax u maamulno iyo saynu cilmi u baranno iyo saynu dayax hataa iyo meelaha ka fog u aadno waa garanaynaa
laakiin waxaa ka horraysa inaynu dad noqonno muslima haddii taa lagu guulaysto waa guulaysanaynaa waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay kambaa dhiman iyo kambaa dhiman war waxaan oo dhami diintay ku jiraan taarikhyahanada qaar baa waxay idhaahdaan persia iyo romaniski waxay idhaahdaan xawaalay 1000 sannadood in ku dhadhow bay isdilayeen qaar baa waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin waxay idhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen qolana 9 bay la galeen 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dawlad hore aqoonin carabi maxay ku faani jirtay quraysh waxay odhan jirtay waxaanu nahay qabiila luqax luqax waxa weeyaan dadaan weligoodba loo talin dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool marka waxaan ku soo koobayaa saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gedisan umamku bay dhahaan 100 sano ay dhismaan laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhiseen waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaaya diintan qaatay ahay kuwii ka dambeeyey hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxbay iska dhiciyeen weligoodna lama gumaysanin jiilkii ka tegayna ama mogool ha jiidho ama crusades ha jiidhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayn ee dunida kuwada dullaysan ha ahaadaan waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn mar walba dunida ninka is haysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya united nation ee ka raadinaya cadaaladda yurub ee ka raadinaya ninka is hayeen inuu cadaalad sameeyo ama inuu naxariisto sidaa marnaba guul laguma helo inteennan caawa halkan fadhidana ilaahun baan gaalka inagu itixaamin daynaba caawa maynan hooyanayn ilaa tabarkala maaynayn mashaakilku wuxuu yahay war hoy diinta ha loo noqdo آخر يا دنبا ولا قولي سنيا والسلام عليكم ورحمة الله